bayaankani oo ay ku saxiixan yihiin 9 isim oo ka mid ah isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa waxa uu ka koobnaa 6 qodob kuwaasi oo 3 ka mid ah lagu socodsiiyay xukuumadda Soomaaliland iyo madax dhaqameedka reer Soomaaliland halka 3 kalena ay ku wajahanayeen dadweynaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gudo iyo dibadba bayaankani ayaa waxa ku saxiixnaa 9 isim oo isugu jiray garaado salaadiin ugaasyo iyo boqorro isimada bayaankani soo saaray ayaa waxa ay kala yihiin garaad Saleebaan garaad Maxamed garaad Cabdillaahi garaad Soofe ugaas Cabdillaahi Ciise Nuur Sultan Saciid Cismaan Cali garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed boqor Cabdillaahi Axmed Cali garaad Saleebaan Buraale Aadan garaad Maxamuud Cismaan Mashqare iyo ugaas Faarax Maxamuud Cali waxa bayaanka isimadu soo saareen warbaahinta uu akhriyay garaad Saleebaan Buraale Aadan oo isaga ay isimadu u egmadeen inuu hadlo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو يعني صحافة ساكا وهندورنا إني باهيان كوامان صوصارني ودمان اسمه عقاشة علماء وحجرتك قبل سول سناقي عين شرارة يشان أيامها كان وسعوني يقامد لقى صوصاري إني صحافة باهيسو ayaan ugu yeernay go'aamadaas waa 6 weeyaan 6 qodob ay ka kooban yihiin beesha ayaa soo saartay waana u midaysan tahay waxaanu doonaynaa in kuwaas lagu dhaqo wax allaale wixii arrimaha ee beeshu ay lahayd ee amni ku saabsanaa ee siyaasad ku saabsanaa 3 qodob waxay quseeyaan maamulka Hargeysa 3 qodobna si gaar ah bay beesha dabadeeda iyo gudaheedaba dadka ku dhaqanay quseeyaan qodobadaas waxay kala yihiin ka ugu horeeya wax wada hadala oo nabadeed beeshu la geli mayso maamulka Hargeysa inta maleeshiyaadka kusoo xadgudbay deegaamadaas ay ku jiraan qodobka koowaad ka labaad waxa weeye waxaanu cadaynaynaa shirkii burco ee 1991 ahaa inuu yahay shir nabadgelyo lagaga wada hadlayay oo lagaga heshiiyay si dagaalkii SNM iyo beesha dhex maray loogu soo celin lahaa nabad mana ahayn shir siyaasadeed oo maamul lagu wada dhistay taasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye baaq baan u jeedinaynaa dhammaan waxgaradka reer Soomaaliland iyo maamulkoodaba waxaanu leenahay naga saara maleeshiyaadka ku soo xadgudbay deegaamadayada oo nabad nagaga saara oo fikir wanaagsan iyo aqal wanaagsan intaad ku shaqaysaan naga saara la isma qabsan karee 3 qodob Soomaaliland ayay quseeyaan 3 kale waxa weeye in dadka deegaamadan u dhashay dabadii gudaba haddii ciidamada la saari waayo ay diyaar garoobaan sida isaga saari lahaayeen qaniya ka aftisaali xoog bay ku soo galeen xoog bay ku joogaan nabadii ku bixi waaye intaasoo sanadood bay joogeen laasacanood waa baabaasan tahay waa cabursan tahay saxaafadii loo diid dumarkii iyo carruurtii waa la xidhxidhayaa inta lacag baa laga guranayaa qofka la sii daynayo aan dembiga lahayn ka kalena dem baa loo samaynayaa wax loo dirayaa Mandheera iyo Hargeysa iyo Burco adduunka waxaan u sheegaynaa inay saxaafadda loo ogolaado laasacanood Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay saxaafadda caburin dadweynahana ka daayaan dhaqanka xun ee ay kula dhaqmayaan shaqaalaha iyo askarta ay soo dhoobeen laasacanood qodobka kale waxa weeye in beeshan dhulbahante waxa halkaa geysiiyay in la qabsado waxa weeye khilaaf iyo tafaraaruq iyo midnimo la'aan dabadiya gudaba inkastoo hadda xaaladoodu ay meel fiican marayso waxaanu u soo jeedinaynaa oo ugu baaqaynaa haddaan waxgaradkii nahay shiray oo go'aamada ka mid ah in la midoobo maalka iyo muruqa iyo maskaxda
intaba in la mideeyo si dhibaatada ina haysata aynu uga baxno waxaanu kaloo ku baaqaynaa wixii khilaaf ee gudaheena iyo waxaynu ku kala duwanahay hadday siyaasad tahay iyo hadday wax kala tahay inaynu dib u dhigano intaynu xoroobayno qodobkaasina waa kii shanaad qodobka ugu dambeeya waxa weeye waxaa naloo sheegayaa shirar ka socda waddanka dibaddiisa oo la isku khilaafsan yahay haddaanu nahay waxgaradka waddanka jooga iyo dadka waddanka jooga waxaanu ka ognahay ma jiraan shirarkaas mar haddii ay caynkaa tahay la iskuna khilaafsan yahay waxaanu soo jeedinaynaa wax laala wixii shiree beeshu ay leedahay in la keeno waddanka gudihiisa si loogu dhammaado midnimo iyo wadajir loogaga wada hadlo loogagana heshiiyo sidaas qura ayuu dhaxalgal ku noqon karaan hawlaheennu waxaanu mar labaad ku baaqaynaa ninkii talahaya ee dabad jira inuu waddanka gudihiisa yimaado oo keeno fekerkiisa wanaagsan halkan ayaa laga unki karaa midnimadii beesha waxgaradkii dadkuna u badan yahay xaqiiqadii arrimaha beesha ay ku sugan tahay na ay taallaa waxaanu jecelnahay qolyaha dibadda jooga inay laba arrin oo haysta beesha maanta oo midna ay Soomaaliya kala mid tahay midna u gaar ay tahay inay ka caawiyaan oo ay iska daayaan tafaraaruqa iyo khilaafka iyo isqabsiga iyo waxyaabaha laga soo sheegayo taas haddii ay dhacdo gudahana waxba ka hagaagmayaan dibaddana waxba ka hagaagmayaan cadowguna sidii buu inoo haysanayaa wax inoo dhismaya iyo wax inoo dhaqmayaana ma jiraan waana ku baabaynaa go'aamadii soo baxay intaasay ahaayeen waxaanu rajaynaynaa saxaafaddu inay gudbiso assalaamu calaykum waraxmatullah si kastaba ha ahaatee bayaanka isimadu ay soo saareen ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada Somaliland ay weli ku sugan yihiin deegaanka Kalshaale halkaasi oo dagaalo khasaare geystay dhawaan ay ka dhaceen inkastoo mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland ay hore u ballan qaadeen in ciidamadaasi la qaadayo haddana tallaabadaasi ayaan ilaa iyo hadda lagu tallaabsan Khadar Cawl Ismaaciil telefishinka Universal magaalada Bohol